السلام عليكم dhammaantiin khiyaarta ku xidhan channelkan Raacday Academy waxaan doonayaa inaan idinla wadaago clipkan kooban aan kula wadaago qayb yar oo kooban oo aad u xiiso badan oo ka hadlaysa wax la yiraahdo tusaale ahaan sida ugu macquulsan ee aad u korin karto ama kor ugu qaadi karto English language kaaga ama ku hadalka luqadda inagoo ka eegina saddex dhinac gaar ahaan ardayda iyo magaranaysaa undergraduate ka ama graduate ku jira iyo kuwa inta badan la halmaala waa dad markaa inta badan videogan uu khuseeyaa oo ka faa'iideysan kara luqad ahaan marka ay wax u xubbilaaban yihiin xagga basic ama grammar hadday noqoto ama vocabulary hadday noqoto ama reading ka dhisan laakiin u baahan in development ay ku sameeyaan saddex section waa qaybta leedahay reading skills ka writing skills ka iyo speaking skills ka waxaan saddexda dhinac inaan ku siiyo saddex xirfadood oo aad kor ugu qaadi karto without teaching adigan kala soo fariisan haddaba aan ku horeeyo waxa loo yaqaano reading ka sidee kor loogu qaadi karaa reading ka waxa kor loogu qaadi karaa adigoo isticmaalaya inaad akhriska badiso maxaad akhriyaysaa marka waa inaad akhrisaa buugaagta fiilkaaga ah riwaayadaha ama waxyaabaha novelada waa inaad ma garanaysaa wararka waa inaad waxyaabaha akhriskooda farbadisaa oo muddo ku qaadataa way waxaad ka dhabaxaysaa contextkii aad ku dhex jirtay ahaa inaad wax Soomaali akhriso inaad wax Soomaali dhageysto marka markastoo aad badiso reading ka dhanka akhriska markastoo aad badiso reading ka buugaagta kala duwan tag contextyada kala duwan hadday research hadday buugaagta fiilkaaga hadday newsida waxaad mar walba la kulmaysaa markastoo aad wax cusub bilowdo ereyo cusub aad la kulmaysaa dadana ereyada waad baaritaan baad ku sameeysaa macluumaad aad helaysaa maskaxdaada way isku soo wariyaan waliba waxyaabahan aad kugula talinay markaad doonaysaa dad reading kaaga kor u qaadayso waa inaad novelada akhriskooda barisaa novelada waxay ka harayaan qisadaasi xiisay leedahay markasta waxaad isku dayaysaa inaad wax fahanto waana ay wax ku bilaabeen kaas waa ka dhinaca loo yaqaan speaking kaaga si aad kor ugu qaado waad pronunciation kaaga waliba u saxdo waxaad u baahan tahay inaad laba mid samayso waa inaad listening kaaga kor u qaadaa adigoo dhageysanaya cid aan ahayn Soomaali oo dad foreigner ah tusaale ahaan oo kale waa inaad adapt gareysaa inaad dhageysato sida tusaale ahaan BBC oo kale CNN oo kale Al Jazeera oo kale gaar ahaan kuwa English ku hadla haddaad muddo wado waxa laga yaabaa bilowga inay dhibaato fara badan aad kala kulanto dhageysiga BBC CNN iyo waxa la halmaalay inaad dib badan kala kulanto laakiin haddaad adapt gareyso muddo bil wado waxaad siyar ula qabsanaysaa sida ay ugu dhawaaqayaan waliba waxaan ku oran lahaa waa inaad ilaacad gaar ah awoodda saarta oo talahan haddaad BBC da awoodda saarto macnaheedu waxa weyn waxaad la qabsanaysaa British accent ka la qabsanaysaa haddaad VOA ama CNN dhageysigeeda awoodda saartana waxaad la qabsanaysaa American accent baad la qabsanaysaa waxaana ku gulatan leeyahay American accent ka marka hore awoodda saarto si aad dabeetana British accent ka iyo accent-nada kale labada ula qabsato kaas waa mid labaad si aad kor ugu qaado speaking kaaga oo waliba adigoo dadka kale fahmaya kor ugu qaado waxaad u baahan tahay inaad samayso maxaa la dhahay daawashada movieska Englishka ah ama Englishka ku hadla waxay leeyihiin badankoodu subtitladaas waxay ku fahmayaan inaad qisadii iyo qofkani wuxuu ku hadlayo actor-kaahi aad la qabsato dabeetana ereygi macnihii baa ku soo baxay inta badan local medium oo dadka suuqiga ku hadlay ay ku hadlaan dabeetana wada adapt gareynaysaa qodobka saddexaad speaking-kaaga saad kor u qaado waa muhiim inaad partner rabto qof partner ah oo magaalada kula jooga ama meel kale aad ka keentay dabeetana aad weekii ama maalintii saacad aad la samayso wada hadal kula samayso Englishka marka saddexda qodob waa saddex qodob oo caawinaya xirfadaada luqadeed hadday tahay reading-ka iyo speaking-ka writing skills-ka waxaad u baahan tahay tusaale ahaan oo kale training yar baa la helaa oo writing skills-ka kor loogu qaado buugaag baa la helaa ka hadlaya English writing skills-ka kuwaasoo kale la helaa marka kuwaas aad u baahan tahay inaad adapt gareyso oo aad si wacan u dhageysto aad baa u mahadsantahay